kulanti waana wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan meel kasta naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya fadlan subscribe ya like noo taabta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay howlgalka wajiga lamaad ee lagula dagaalayo kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalanta madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo tagay magaalada Aadan Yabaal ayaa uga dhawaaqay wajiga lamaad ee ka dhanka ah kooxda wax qarbuda ee Soomaaliya ka dagaalamaysa muddada 15 sano gaaraysa dawladda Soomaaliya ayaa hore dagaal baahan ula gashay ururkaas waxaana dawladdu guula la taaba kale ka gaartay gobollo ay kamid yihiin Shabeellaha Dhexe, Hiiraan, Mudug iyo Galgaduud oo deegaanadii ugu badnaay ay ka falamarojisay xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dawladda Soomaaliya ayaa wada dardar xooggan oo lagu soo afjarayo kooxdaas tadhaxday ee gaagumtirista iyo dhibaatada baahan ku haysay muddada 15 sano dalka Soomaaliya madaxweynaha iyo dawladdiisa ayaa la sheegaya waxa ka go'an ka howlgalka ka dhanka kooxdaas balse dad mucaaradsan howlgalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku eedeynaya inuu adeegsaday maleeshiyooyin halka uu adeegsalahay ciidanka xoogga dalka taasuna ay sharaf darro baahan ku tahay militariga Soomaaliya balse kooxaha wax qarbuda ayaa waxa looga adkaa kariya dadka deegaanka iyo dawladdu haday iska shadaan madaxweynaha ayaa ku guuleystay wax ka qabashada arrimo badan amni darrada wadanka taasoo dagaal baahan oo la galay kooxdaas gobolkeedu uu sii dhacayo dawladda ayaa sheegtay guulaha la taaba kara ay ka gaartay dagaalka baahan ay la gashay ururka Al-Shabaab oo awoodo badan ku lahay balse 15 sano uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegaya inay haba yaraatee aan dagaal lala gelin kooxdaas balse 10 bilood oo joogo filla Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu dhaliilo nin dhaqaalaha aruursada balse uu muuqdaa doorashadiisa dambe inuu doonayo inuu dalka wax ka weyn ka bedelo Farmaajo ayaa ahay nin aan dagaal la gelin dawladdiisa 5 sano iyo bilooyin ay ku jirtay xukunkeedu filla Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegaya inay ka go'an tahay ka burinta wadanka kooxaha soo duulay balse ay hortaalo dhibaatooyin iyo shaafalatooyin waaweyn jidgooyooyin ay u dhiganayaan siyaasiyiin miisaan ku leh dalka taasoo ay dooneen inay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo afjaro kooxdaas muddada 15 sano dalka Soomaaliya qarribaadda iyo qarbudista dunida inteeda kalena waji xun uga sawirtay balse Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa dan qaran ayaa la sheegayaa inay ka go'an tahay wax ka qabashada amniga soo celinta karaamada sharafta iyo jiritaanka dalka taasoo u ah siyaasiyiin aad u waaweyn sharaf dhac una arkaan mid khatar ku ah jiritaankooda siyaasadeed hadduu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka xoreeyo dalka oo idil ururkaas oo awoodaha badan ku lahay gudaha Soomaaliya dadka Soomaaliya ayaa dagaal la galay deegaanada Hirshabeelle iyo Galgaduud kuwaasoo guula la taaba kale ka soo hoyay dagaalka baahan ay la galeen dadka deegaanka ayaa cagtamirshay kooxdaas argagixisada oo doonaysay muddo 15 sano baad iyo dhibaatayn dil iyo qarbudis baahan ku haysay dadka ku nool deegaanada koonfurta Soomaaliya taasoo ay u muuqato inay maamulada qaar ay dooneen inay howlgal lagu baacinayo kooxdaas ay ka qayb qaataan taas beddelkeeda ay daneynayaan in ay fashiliyaan madaxweynaha dawladda wadane Xasan Sheekh Maxamuud oo howlgalkan wajigiisa labaad ku baaqay muddo 2 bari ka hor ah taasoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu dalka oo idil oo xasilooni iyo deganaansho ballaaran oo ku soo dabaalo dawladdiisa ayaa lagu tilmaamay dawlad doonaysa in ka dhan ah la dagaalanka kooxaha argagixisada balse dadka eedeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeya in uu nin dhaqaalaha iyo hanti ballaaran inuu boobo uu doonayo dadka aadka u dhaliila amba qabiil ahaan amba siyaasi ahaanba u nacab ayaa ku eedeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tilaabadaas aadka u xunxun
daawadayaal intaasaan kusoo gabagabaynaynaa. Amaano allah daawadayaal.